maryan waxa ay la nooleed aabaheed iyo aayadeed oon iyada sinaba u jeclayn. maryan hooyadeed waqti ka hor ayaa aabaheed furay kadib markii iyada oo keliya dhashay. ilaa iyo markaasna maryan may aqoon meel hooyadeed adduunyada kaga nooshahay iyo iyada naf ahaanteedaba. maryan waxay u go'nayd ooy raaci jirtay ari aan tiro yarayn oo ido iyo riyaba leh. wax dhiiqa ma lahayn arigaasi, hadduu yeeshana iyadu awood uma lahayn inay maasho nafteedana uga faa'iidaysato. hawsha ariga iyadaa iska lahayd, manaafacaadkiisana aayadeed iyo ilmahay dhashaya iyagu aan warhayn ee hadba wixii la siiyo iska cuna. laga yaabee in maryan ariga caana ka dhadhamiso, waase hal mar oo keliya, marka dadka intiisa kale ay sanka ka soo celiyaan. maryan iyadoo waxaasoo dhibaato ay haystaan ayayan haddana ku nabadgeli jirine cawo iyo maalin waxay ahayd mid dil, habaar, hiif iyo dibindaabyo joogto ah kala kulanta aayadeed oo iyadoon waxba dhiqin, xoolana aan war u hayn, had iyo goorna gurigeeda dhexdiisa ilmaheeda ku ciyaarsata. maryan dhibaatada culus ee joogtada ah darteed ayay inta baydaday ama fiigtay wixii la hadlaba waxay moodaysaa inay dilayaan. masruuf ama biil ayay dilistu u ahayd, oogadeeda nabarrada ku yaalna way tira beeleen. aabbaheed waa iska dhegweyn aan sidaa wax u danayn. marmar ayaa laga yaabaa inuu naagtiisoo si xun u rifaysa arko, xaarxaariyo kana qabto. inta badanse wuxuu u qaataa dilista maryan la dilayaa inay tahay lexajeclo iyo coodkoo la rabo in si fiican loo dhaqo. maryan ama ha la dilayo ama ha lala hadlayee ma hadasho, maxaa yeelay cid ka guraysaan jirinba. deegaankay ku noolayde aadka cadowga ugu ahaa darteed ayayba noqotay qof mucaqadad ah, aan sidaa wax u gelin, aan nixin, qoslin, farxin, hadallada dadku kula wada hadlayaana aan sidaa u danayn. maxaa yeelay dadkoo dhan cadow ayay u haysatay. aayadeed waxay aad u taqiin tirada iyo suuradinta ariga, taasoo mar alla markay ogaato in wax maqan yihiin sidii shabeel ceesaan arkay ugu soo haliisho iyadoon waxba weyddiin. galabtii dambe ayaa waxa dhacday in gooray maqrib ahayd, arigiina soo xareenayo, aayadii ay towday orgi keli ahaaye ariga ku jiray. aayadii dhowr jeer ayay aad ugu noqnoqotay indhayntiisii. waxay ogaatay in orgigaasi maqan yahay. maryan oo horayba u towsanayd orgiga halgaadaha ku iman doonana horay ugu soo tala gashay ayaa aragtay in aayadeed la towday orgigii. wakhtigu markaa waa habeen maqrib himahimow ah, aryowgii xeroodeen, geelashiina soo dheelmad habqamayaan. waxaa iyana cidaha kuurka u wada fadhiya libaaxyadii dadqaadka ahaaye meelaha wax ka jeeqaaqaya. aabbaheed ama odaygii reerka wuxuu weli ku maqnaa soo dheelanka hala dhowr ah iyo gaadiidkii cidda. maryan aragtay in lagu soo socdo, aayadeedna iyadoo tib weyn sidata ay soo malabsanayso. way tallantay oo istiri maxaad yeeshaa. labada dhanba u daran oo hadday sugtana tibtaa ayaa ka meel waayeysa, hadday carartana waxa ka horreeya waa libaax iyo dugaag aan u daahayne haddiiba kala jabsanaya. waa markii ugu horraysay oo hadal nooli maryan afkeeda ka soo yeedho, iyadoo tidhi wallay caawa min daa'ima dishid, saa kuma sugayee dilkaagana in haddaba libaaxay cunaan ka doortay. maryan markii ay sidaa lahayd way sii ordaysay. aayadeedna iyadoo ul weyn wadata ayay ka sii daba ordaysay. labadooda maryan ayaa dheeraysay, haddiibana way ka libirtay. aayadii iyadoo usheeda wadata ayay dib ugu soo laabatay gurigii, welina waxa ay waday hiifkii iyo habaarkii ay maryan u haysay. goor dambe ayaa waxa soo xarooday geelii oo ay wadaan odaygii iyo wiil kuray ah oo uu dhalay. aayadu waxay islahayd maryan waxay la iman doontaa geela, hase yeeshee ma dhicin. odaygii reerka ayaa tabay maryan oo aayadii weyddiiyey. aayadiina waxay u sheegtay inay canaanatay maadaama orgigii weynaa la xaday, islamarkaana maryan ay carartay. intii aan odaygu jawaabin ayaa waxaa hoos iskula hadlay wiilkii kurayga ahaa, maadaama uu aqoon u lahaa dhaqanka aayadii iyo waxa ka dhexeeya maryan iyo iyada. wuxuu ku fekeray in maryan la dilay oo ay dhaawac dartii la soo kici laadahay, iyo inay carartay oo meelaha ay dugaag marti u tahay. ha yeeshee isagu ma hadline wuxuu ka dhursugay waxa arrintaasi odaygu ka yeelo.
odaygii baa qayliye oo yidhi naa miyaad dishay gabadha oo aad cayrisay miyaadan ogayn in meelaha dugaag dadqaadihii ka buuxaan isla markiiba wuxuu u baxay bannaanka wuxuuna u qaylo dhaamiyey maryan isagoo leh maryanay maryan aabba kaalay anigaa kaa ballanqaaday inaan caawa kadib lagu dilini odaygii wuxuu qayqayliyaba wuu quustay ugu dambayntii isaga naf ahaantiisaa libaax ka baqayey markuu meelaha wax dadayayey wuxuu sitay qori uusan sida badanba dhigin si uu isugu difaaco haddii bahal soo weeraro wuu soo laabtay oo jiitimihii inta soo adkeeyey ma fadhiisane wuxuu maryan ka baaray xeryaha xoolaha iyo hareeraha reerka oo idil waxba waa hadba dhan eeg madaxa ruxrux wuxuu yeelana garan waa mar buu is yidhi xaaska ma garaacdaa maadaama ay iyadu u sabab ahayd waxa dhacay haddana wuxuu ku daystay laga yaabee in dhibaatadu meeshay hadda joogto meel ka xun tagto intuu iska soo fadhiistay buu yidhi adaa tolaya ka tali waxay ila tahay reerka gabadhiisii adiga unbaa yaqaan meeshaad ka keeni lahayd adaa lagaaga fadhiyaa laguuna haystaa xaaskii ayaa harag waraabe alla u tuuray meelay wax ka tidhaahdana weysay wax kastana waxaa uga sii daran maskaxdeeduna qaadiba la'dahay berri ahaa ariga raaci doontidaa inay ooyshay ku sigatay adoo nabad la balawaara baloy kaalay lama yidhaah hadday kuu timaadana lama booyo boowow ayay iskula hadashay in cabbaara ayaa laysla hadli waayey wax la yidhaahdana la garan waayey la arag arrintu inay meel aad u xun taagan tahay wax ka qabashana ay ka tagan tahay way garwaaqsiisnayd inay dembi gashay inkastoy qof kibir iyo talaxumo u geysay tahay mar dambe oo dhowr saacadood la odhan karo odaygii isagoon hadlayn ayuu inta dhowr tagaarood ka walamwalamsiiyey qorigiisii oo xabbada dhuunta u yaallaanna inta la soo fadhiistay isagoo salka dhulka ku hayey iska hamiyey xaaskii inta ilmihii oo meelaha kala daadsan guriga gudihiisii u daadguraysay bay iska dhex seexatay meesha hadalka ama daqaqanku aad buu u yaraa doodi kama ay furrayn oo duruuftaa ahayd mid aan oggolaanayn wax nolol sidaa ahi ku sii jirto dhammaan waxaa loo wada muuqday dad isku wada cadow ah maryan markay cagaha wax ka dayday ilaa saacado dhowr ah ma joogsane waxay isugu bixisay orod aan kala go' lahayn iyadoo u sansaan eg qof inta baydaday xargagoosatay xabsina ka carartay in muddo ah markii ay sii baydadaysay ayay mar dambe xistay inay carri cidlo ah jeexayso ayna marti u tahay libaaxii dadqaadka ahayd horayna meeshuba u buuxday way istaagtay oo wax dhegaysatay meel kasta sharqan iyo buuq ama hugun ayaa uga baxay baqdintay baqaysay iyo harraadkii dhegajeexay dartood wakhtigu waa gudcur aan waxba la arkayn hadba dhan bay u jeesatay waxay kala garan weysay meeshay ka timid iyo meelay u socoto way dayowday iyadoo iska jahwareersan oo baqdin daraaddeed socon la joogsanna la ayay mar dambe maqashay libaax cidii intay qabowday oo qamandhaco ama jiriraco lagu jejabiyey bay in cabbaar ah wax dhaqdhaqaaqa iska weysay mar dambe oo libaaxii cidii yareeyey ayay miyirsatay dhankuu ka ciyey mooyee dhankii kale ayay isku qaadday muddo saacada beeyan kala goyne orod ugu jeexaysay sayrmada laabmaha qodaxda mudaysa xagashada qoryaha qallalan jalfinta kurtumada iyo dhagxaanta turaanturada iyo kufidda ku dhacaysay waxay ahaayeen kuwa tiro beelay ha yeeshee ayaan iyadu dhibaato u arkaynin waxay baydadkaas irdaha furan ee aan meel la haysan la sabaysaba ayay mar un istaagtay si ay jabaq u dhegaysato dad iyo dugaagba waxba maqli weysay meeshaydii ayay ka miistay waxay orodaba mar dambay joogto inay dhacdo ayay goosatay inay indhaysato geedo dhaadheer oo ay dugaagga ka fuusho maxaa yeelay sheekay ku maqashay in marka bahalaha laga cabsado geedo dhaadheer laga fuulo kol dambe ayay ku soo baxday geed dheer oo istiri allay leeh ha dhaafine fuul dusha ayay uga baxday geedkii dhibaatase waxay timid markay lulmooto yaa ku haynaya geedka iyadoo sii lulmoonaysa inay seexatana u dhow baa waxaa soo yeeray cillibaaxi aad mooddo inuu ordayo hurdadii ayaa ka duushay inay dan u ahaydna lagaba yaabee
libaaxii wuxuu soo cadaadaba waa soo dhowaaday mar waa aamusayaa mar dambe ayuu haddana ciyayaa isagoo aad mooddo inuu ka sokeeyo meeshuu awal ka ciyey waxay sidaa ahaataba mar dambe ayuu laba soo wareegay goobtii geedka Maryam fuushan tahay ku yiil si kadis iyada ku noqotay ayuu mar aanu ka fogeyn agteeda af labadii yeeray naxdintay naxday markay soo faniini gaartay ha yeeshee intay laamahay haysatay xajisatay bay isha un ka eegtay waqtigu markaa waa goor dambe dayax ayaa soo baxaya oo cir daruur ka maran soo dhex jeexaya dhanka dayaxu ka soo baxayo ayuu libaaxu ka xigaa iyada mar un bay aragtay libaaxii oo inta kobtii madaxa kala soo baxay dhulka sanka la soo raacaya sina aad mooddo inuu u degdegayo waxaa isku dhacay dayaxa nuurkiisii iyo baabushii badnayd ee caddayd taasoo u suuro gelisay Maryam in markii ugu horreysay ay ka ilsugato libaax aragtidii way sii naxday waxayna ku sigatay in wadnuhu istaago naxdin darteed libaaxii oo daqaf leh ayaa geedkay fuushanayd la soo wareegay isagu sanka dhulka kama qaadayne oo raadkeeda ayuu ku joogay sidii waxanaaqay buujeenyaha dhulka ku xoqay libaaxaas ayaa inta sidii wax fariisanaya beerka dhulka dhigtay jeenyahana hore u bixiyay wuxuu isku dayay inuu ogaado qofkuu ceyrsanayay meeshuu geedka ka saaran yahay isagoo sidii wax jiifo ah ayuu kor iyo geedkii soo eegay uu soo eegayay maahee haddiiba isha ayuu ku dhuftay Maryam oo sidii calal dhammaadee hirigi la hartay meel aad isaga uga fog laan ugu maran Maryam iyadoo geesa leh timaheeduna qodax yihiin ayay si buuxda dhaqdhaqaaqiisa indhaha ugu haysaa labada gacmood waxay si buuxda ugu haysataa laan ay xabadkana ku haysee agteeda ah iyadoo rakaysatay salkana ku haysa laan laba madax leh meeshay ka kala kacdo waxay jeclaan lahayd inay haad noqoto sidii shimbiraha meeshaas yaabka leh ay ku xayiran tahay si ay si sahlan uga hadaafto يعني معلوبة دلكوبها المالية هاي الله هايو بلانك بابول كما ملايتني يدحي ودحي يدحي ودحي يقبحي الله هايو isagii markuu arkay inay adag tahay si loogu tago ruuxa isaga ah uuna ogaaday maadaama uu yahay bahal dadka aqoon u leh in qofku aanu sida u weyneyn ayuu isku dayay inuu bajiyo waa intaasoo intuu kala bato bardado uu soo dhacay wuxuu ahaa bahalkaasi mid inta libaax weyn yahay weyn dhagorta guudka baabusha iyo haylimaha ku yaalna ay tirabeeleen aad buu u dhisnaa una lixaad weynaa surkiisa hilibka saaran iyo xoogga ku jira daraadii awood umuu lahayn inuu isagoo taagan kor eego sidaa daraadeed kor markuu eegayo waa inuu u seexdaa isagoo meesha baraaqa Maryamna eegaya ayuu inta afkii laba ka kala dhigay intuu awood lahaa gurxan iyo gunuunuc ooda ka soo qaaday uma sii sugine intuu kor u booday uu sidii wax geedkaba samada ku calaqaya cidiye aad warma moodo intuu surtay gilgilmaagay cirkii iyo dhulkii ayaa qaylo iyo sharqan isqabsaday geedkii baa dhaqdhaqaaqay Maryam baa intay itaal lahayd waxay isugu geysay laantay haysatay nasiib wanaag ma ay soo dhicine meesheedii bay ku mitiday inay la soo jiifto iyada cabsi iyo qiyaamo u haray ma jirin waxay ugu muuqatay in dhulku wada gariirayo dabaylo iyo duufaano dhacayaan ciidu dhaqaaqsan tahay adduunkana gogashiisa loo laabayo aan wax harayaa jirin haba yaraatee meel loo irkado ama ceebsi la bidaa uma ay muuqan nafta oo daysa bay sugaysay muuqaalkeedu wuxuu ahaa qof inta awalba itaal la'aa haddana tan dhex galay madax yare laba indhoodoo galka ka baxsan oo aragoodu ama daymooyinkoodu meel kaliya haysto af laba daan noqday luqun aad moodo in kol hore naftu daysaye qallalan bay la soo qotantay libaaxii markuu cabbaar meeshii gilgilay siduu rabayna ay u noqon weysay oo Maryam soo dhici weysay uu inta jijimicsaday ilka aad moodo qoryo miibac ahoo
meel ku rarnaa muujiyey carab aad moodo sanbab cabbaar kowraxsanaa intuu hadba dhan u eriyey shaarbahana marsaday wuu tartiib sidii wax tegaya u sii tallaabsaday maryan way garansiisnayd inaanu ka dheeraan doonine iyada uu isleeyahay aad degtid waa intaasoo istiraahdo tagyaye meesha ka carar markaas wakhtigu waa gelin dambe waagiina ma foga libaaxuna wuxuu dhibsanayaa waaga ku baryaya isagoo ka xun cashala'aanta ku dhacday caawa ma uu fogaane intuu meel ku dhow dhabbacday wuu si qarsoodi ah ilqooreedka uga eegayaa maryan intiiba ooggiibaa istaagay iyadoo sidii kuurka la isugu jiro isagiioo halkii wax jeeqaaqaya ayaa dhegtiisu jabaq maqashay intuu sidii wax xanaaqay booday buu u kuurgalay waxa jabaqda yeertay tahay wuxuu ka xumaa in laga sii daayo qofkan u xiranay isaga siday la tahay uu maray noqotaba afka u ridan doono wuxuu dhegaystaba wuxuu ogaaday in hadal soo gelayo wuxuu ku tallamay inuu dadka soo socda intuu u kuurgalo wax ka qaato iyo inuu tiisatan majinta uga xiran ku nasiibsado bulaanka iyo ragga hadlayaa badnaantiisa ayaa cabsi gelisay inuu iyaga weeraro taasuu is yidhi armay kugu dhacdaa wax badso wax beel bay leedahay waxaa jiray in meeshu dhabbaha loosi ahee dhaanka iyo safaradu aan kala go'in ahayd waxa soo bulaamayana yahay safar cidaha ka yimide magaalada u socda waxaana wata rag hub ka buuxee ugu soo talagalay inay isaga difaacaan dad iyo dugaagba libaaxii arag in arrintu qasan tahay waxa soo socdana ayaan kaba leexanayne iyaga un ku soo fool leeyihiin wuxuu goostay inuu maryan mar kale weerar cabsigelina ku qaado waa intaasoy hadda hurudaayo ay soo dhacdaaye safarkii markaa waxba uma jiro oo kobtuuba madaxa soo gelinayaa maryanna mar horeyba maqashay bulaanka dadka walowba aad ay ugu adag tahay siday afka hadal uga soo saari lahaydoo waxay u muuqatay ruux naftu ku sii dabayar tahay waxay istiri qaylo sii bilow intaan laguba soo gaarin amaan lagu dhaafinba ha yeeshee way kari weysay niyadda way ka lahayd qayladaas ha yeeshee mid laanta ay haysataa maqlayso ma ahayn libaaxii oo kankoonsan ayaa geedkii soo galay isagoo qayliyo xaruun isku qasaya buu haddana bootin intii itaalkiisa ah soo booday wuxuu qabsaday meel dhexe oo geedka jirridiisa ah markii libaaxu qaylada bilaabayba waxaa diday awrtii safarka ahayde markaa aan waxba u jirin xarga adag ama hoggaamo la saantay iyadoo isku xirnayd ragga watana awalba aad uga feejignaa daraaddii ayaysan xarga goosane haddiiba inta mid loo garqabtay qoryihiina la rogtay dhowr xabadood meeshii libaaxu ka gurxamay la dulmariyey intaan la ridin xabadaha ayaa ninkii ugu da'weynaa meesha waaye aragnimadana isbidayey hadal qaylo ah wuxuu ku yidhi yur war xabadaha hoos ha ugu dhigina bahalkee kor mariya ha inaga tagee inaanu inagu dhaawacmin baaroone safarkiibaa halkaas ka garqabtay iyadoo awalba la watay owr aad u dheeraysee si siibasho ah ayaa loo socday qorraxdii ayaa soo kululaatay odagii ayaa eegay maryan oo ay si hurda u hayso inay ratiga ka dhacdana u dhow owrkii ayuu joojiyey intuu jilibka u laabay buu ka dejiyey inay qof adage socon karta tahay markuu arkay buu in biyaha intuu siiyey ku yidhi hadda waad socon karaysaabay ila tahay intay qosol xishood iyo naagnimo ku jirto hoos ula gabatay wejigana dadabtay bay tidhi haa waa socon karaa maahee waan ordi karaa odagii intuu gacanta qabtay buu dallad uu sitay hooskeedii wax ka wadaajiyey maryan markaa iyadaaba ka dheeraynaysay baad mooday dadka intiisa kale wax la sii dhadiiqeeyaba qorraxdii baa harkii isku taagtay loogamase jimcine socodkii xalay baaqday baa in la kaaba la rabaa awrtana loo nixi maayo wax saaran oo aan durfi ahayni ma jirin hadday raragubyoon lahayd markii qorraxdii dhankay ka soo baxday mooyee dhankii kale u foorarsatay milicdeeduna mid geeri ah tahay ayaa leys wada eegay inta geedo waaweyn meel caws yar lehna ku dhow la eegtay baa reeryadii saarnayd inta laga furay la seeteeyey geed harac ah ayaa inta la isku kala tuuray waxa la karsaday shaah
shaaha ka hor waxa laga sii laacay hilba caate ah la sitay solay maryan qaybteeday ka qaadatay iyadaaba shaaha karisay galad bay iyada u ahayd niyadeeda farxad ayaa buuxisay waxayna islahayd magaalada ayaa tagi doontaa iyadoo dhag ay ka maqasho mooyee aan weligeedba arag meel magaalo tahay iyo si looga nool yahay midna raggii indhuhu iswada geliyey maryanse farxad rayn iyo niyadeedo wax istustusayeen daraadeed ayaa hurdaba ka iman weysay maryan oo sidii u fadhida ilna aan isgelin ayaa odaygii indhaha kala qaaday hadiiba si bootin ku jirto intuu isu taagay buu awrtii daymooday maryan baa iyana inta istaagtay tiri ma soo dabaa awrta odaygii baa inta qosla yiri allah ha ku celin iska fadhi heedhe halkaaga anaa soo kaxaynaye horay intuu u sii dhaqaaqay awrtiina hadiiba isku soo xiriirsaday raggii kaloo weli hurdana kor keenay buu qaylo hees rarmo ooda ka qaaday raggii kala wada booday awrtiina horay heeryada kaga boobay muddo 3 daqiiqo ka yar ayaa inta lagu bogay hadiiba horay loo bushin tuurtay toobiyihii baa caraaba ahaan cagta loo saaray odayga oo isagu diidan in maryan la wareysto maahee ragga kale oo dhalinyaro ahi aad bay u jecel yihiin in iyada la xog wareysto lana weydiiyo waxay tahay meeshay ka timid sidii bahalku ugu yimid ama geedka uga fuushay odaygu aad buu u hortaagnaa waraysigaas oo wuxuu isleeyahay iyadu wax yeelayaa maadaama baqdantii wali ku jirto qof yarna ay tahay haday iyagu waraysan lahaayeenna isagay ku ixtiraamayeen maadaama uu yiri yaa intii muddo ah waxba la weydiinin qoftaas awrta oo cadaysima aan wax ka duwaneyn iyadoo ahayd mid dheereen iyo xoogba loo soo saantay rag wada gaamuraye xoog lihina gar hayaan darteed ayaa maryan aad ugu adkaatay inay la qabsato markii si looga go'aba orad bay hoosta ka xadaa kucilo orad ayay reerka kula socotay caraabadu waxay ahayd mid cagaha lagaga gubtay qorraxdu aad bay u dheereed golcas waliba kaliil joogtee abaar tumaysa ee hongaraha iyo hanfiga ka soo baxaya yihiin kuwa lagu aqdee dad horay u wada eeday bay ahayd maryan oo daalka iyo diiftii horay u soo halakeeyay wax weyn u dhimayaan socodkeeda yarayne intii itaal ah istiilaysa ayaa dantii wax la sii dusmeeyaba u been sheegtay runina rungaysiisay marka laga reebo go'ii saaka lagu daday maryan dharkay qabto waa mara midab laho si ugu marmaran qaarkeeda sare ahaana way garaarsaneed dhaxda marka la soo dhaafo waa farqiyo ama haylo si isdhaafsan u jeexjeexan kaba ma qabto oo cageeda waxaad moodaysaa geed jilfaystay meelo badanna dhiig ayaa kaga yaal ka soo dareeray jirkeeda ka sareeya markii jeeda xagteen intay isku duuduubaysay ay islahayd go'ii la siiyay isku astur ayuu inta xayiray socodkii ama dheerayntii ka cuuriyaanshay way iska dhaqdhaqaaqaysay oo waxay ku mitidaysay inaan laga tagine way garsanayd odaygii ayaa arkay inay leecsan tahay markaas ayuu awr inta arumay dusha uga tuuray inkastuu u dhaamay haddana raaxo ma lahayn reeriyo caws ah iyadoo saaray darteed ayaa meel kasta ka xagatay waxa arkay odaygii oo markasta isha ku hayay iyada wuu fahmay dhibaatada haysa intuu joojiyay awrkii oo gogol uu watay naagtiisa u soo duubtay busta iyo barkin ugu hagaajiyay buu yiri meeshan fariiso maryan baa inta meel raaxa miiran ah salka saartay neef weyn fuu soo siisay iyadoo hadalkiiba ka xishootay iyo inay mahadsani tiraahdo awrtii baa inta dib loogu laabtay xiriirkii loo wada adkeeyay raggii awal wada socdayna intay isqaybsheen baa qaarba dhan hore iyo gadaal laga kala maray odayga garcadaaga ah ayaa awrta garhaya qorigiisu dhagtuu u saaran yahay wuxuu kaloo sitaa oo ragga kala wadan toosh lixiqaad ah meel dheer wax lagaga ifin karo maryan waxay saaran tahay ratiga odayga awrtana u horeeya isagoo la biday inuu yahay kan ugu dheereeya uguna hayeensan inkastoon la wada hadlin meel lagu wada hadlana la joogin waxaad moodaa in raggii maryan badbaadiyay iyo odaygu yara isku riixayaan
odayguna hadda iska dhigayo qofuu isagu wado iyaguna badbaadinteedii tirsanayaan waxa inta raacda Maryan may fool xume intii gabar Soomaaliyeed qurux badan tahay ayay qurux badneed dhibaatada kaliya haysay waa diif xun oo ka muuqatay marka la joogay iyadoo horay u soo weysay koriimo dheelitiran oo laftay u dhalatay lixaad ula Maryan way yar tahay rajada laga qabana waa markay korto oo ina noqoto wax la sii dalagleeyo oo hadba karin laga sii diso sanna laga laabtaba goor dambe habeen bartahay ayaa la soo galay magaalo ku sheegii loo soo socday waa magaalo aan sida u weyneyn nalal malaha dariiqyo laami ah iska badaa badiba guryaheedu waxay ka dhisan yihiin dhagax dhoobo ama qoryo aan hab wacnayn dariiqyada magaaladu waa dhagxan iyo habaas miiran jiingada go'an jaqafka daasada ama weelka gorofka ah qoryaha jajaban dartood qofkii iyadoo habeentaa dariiqyada mar is yiraahda waa ku kufaya waa ma dhacdo in qof aan wax ibsanayni ka nabad galo turaanturo iyo kufid ama dhaawac adimada hoose ka gaara dadku sida badan tooshash ayay qaataan oo mar alla markii aasku madoobaado ayaa magaaladu waxay u ekaataa cir aan daruuro lahayn oo gudcura meel kastana xidka ka bidhaamayaan waxa sida badan la ibsadaa faynuus ama mataramakis inkastuu yar yahay kuna kooban yahay inta u ladan meesha dadka intiisa badani waa faynuus waxay ibsadaan walowba ay jiraan dad badanoo iyagu waxba aan ibsani mugdigooda muquurta gabalku markuu dhacana sidii goroyo gabal u dhacay isugu soo urura goobtay ku hoydaan waxa yara la roon yahay markii dayax jiro magaaladu waxay lahayd dukaamo aan badnayn waxa yaalina sidaa kale intay yaraayeen haddana noocyo xumaayeen waa alaab dibadda ah maqaayado sida badan laba jeer wax laga cuno way jireen manay badneen aad bay u koobnaayeen saacadu markay gaarto 7:00 magaaladu way seexan jirtay dhammaan aan ahayn ruux qaraaf xan ama hawlo kale u gaara u socda iyadoo xaajadu sidaa tahay oo kol hore laga seexday mid meelahaas miraafaya mooyaane ayaa awrtii safarka ahayd ee Maryan Siday soo gashay nimanka safarka wata magaalada way kala yaqaaneen oo waa takaliyo adduunyada kaga xirnaayeen waxbana dib kala ma kulmine mar alla markii la soo galay ayaa nin waliba inta awrkii xiriir furtay la aaday ciduu yaqiine dantu uga guntaneed intaan la kala harin ayaa odaygii garwadeenka iska dhigayay yiri war aynu bari subax iska war hello si aynu isu ogeysiino waqtiga ambabaxa inaynu dhaqsanana waa lama huraan bay ila tahay inamadii mid kamida ayaa istaagay awrku garhayayna joojiyay oo yiri waa lama huraan taasi oo adun baan bari ku iman doonaa maxaa yeelay adaa suuqa naga badiya reer magaalkuna sidaad ba ogsoon tahay waa tuugo aan ku naxayn ama aqood ama ha aqoone intuusan hadalkii dhamayn ayaa mid kale inta qosol beenla ka jan ah qoslay wuxuu yiri war waa in la dagaalamo oo kulay waa leeyna dhacayaaye aan ugu yarayna dhicidaas odaygii baa yiri taasi shaki ma laho waxa u daliila magaaladuba maxay ku dhisan tahay soo waxay reer baadiye ka dhacday maaha meeshan warshada kama furra beero ma laha basiin ama macaadin kalena kama qodna waxa kaliya magaalo ka dhigay ilaa iyo maanta ay u jirtaa soo maaha balse hal la iska warhayo oo bari aroortii aynu isugu imaadno maqaayada waana inaydan waxba gedin ilaa meelaha intaan galgallo bal wax kala ogaano inta ay habeen wanaagsan Maryan oo indhawaalaba sidii magaalada loo soo galayba ka yaabaneed gaaraha ama dhammaan guryaha dudumooyinka iyo gabiyada ama boholaha iyada ula ekaaye magaalada lagu sheegayo waxay aad ula sii yaabaneed ifafka mataramakisiyada oo ay islahayd dadku armay isgubaan mise waaba wax kale dab ma aha Maryan wali waxay saareed ratiga guudkiisa iyadoo yaabka iyo amakaaku ku sii badanayay ayaa odaygii ratigii hoggaansaday goobtuu u socday ayuu tagay hadiiba intuu arumay oo Maryan soo dajiyay ayuu heeryadii ka rogay wuxuu u soo dhaqaaqay dhankii guriga Maryan iyadoo go'ay isaga ahaa hulaaban aadna meesha uga cabsanaysa inta isii duubtay meesheedaas iyadoon wax dhaqdhaqaaqa muujin sidii jirid qalalane meesha ku taal taagnaatay indhahay wax ka eegaysay oo kaliya odaygii baa guri garaacay waa laga furay oo inta lagu soo booday kor loo qaaday qofka odayga qaadaya rayraysanaya waa qof haween ah odaygii dib ayuu isu soo rogay oo Maryan intuu u
yimid gacanta soo qabtay adeer ina keen odaygii baa yiri maryan way raacday wuxuu geeyay gurigii oo faynuusi ifinayso gurigu waa guri aad u qurux iyo dhaldhalaal badan markii maryan loo eego waxaana iska leh odayga afada meesha joogta ee hadda ku dhaganayd isaga qaba isagu waa laba reer miyi iyo magaalo degeen tan dhawaan buu guursaday walina caruur may dhalin miyiga mid kale u jirto oo aad u daaweyn caruurtiisu ma yara waa ilaa 19 hadda se wuxuu aad u lahayaa minyarada cusub ee dhawaan soo galka ah waagii bariyo la soo wada kaaga dadka meelaha maraya way arkayeen maryan waxay u haysteen inan yaro dab iyo wax la mid ah doonaysa mar damba naag dhowr kol taagnida maryan isha ku dhufatay gurigeeduna meesha yahay yara shakisay oo istiri qofka maxaa meesha ku dhidbay hadaba way la ahaan weysay inay inta u timaado wax weydiiso maryanna meeshii ka dhaqaaqi weysay oo wayba togtogantay maba dhaqaaqi karayso ilaa ama la qaado ama la diiriyo dadyow kala iyana arkay qofkan meesha ku dhidbane aan dhaqaaqaynin mar damba inkastoo wali la isweydiin ayaa naagtii dadka u hor aragtay intay soo dhaqaaqday maryan u timid intay isi soo agtaagtay bay tiri haye gabadha bal iska waran xanuun miyaa ku haya maryan in yaray indhaha wax ka eegaysa mooyaane dhaqaaq iyo hadalba weydiisay naagtii baa waxay aragtay in qofta la hayo si kastaba ha loo hayee aragtay inay tahay qof baadiye ka yimid waliba mid fog oo dharkay qabtiyo sansaankeeda laga garanayaa naagtii intay yara naxariiso istiri bay damacday gacanta qabo inta meel fariisisid wax ku qabo ay qabatayba waxay dareentay siday u qabowdahay una dhaxamaysan tahay intay isku duubtay bay u garab gashay dhankii gurigeedii meel bay inta fariisisay shaah kulul faraha ka saartay maryan oo gacmaheeda dhaqaaq gab ku dhow yihiin xanuun dheeraad ahna ka tirsanaysa ayaa fadhigii la fariisiyay shaahii qabsamaagtay markaasuu ka farabaxsaday aad buu u kululaa kubabka iyo caguhu kaga daatay markaasay wax dareentay naagtii ayaa iyana naxday waxay la soo carartay sokor iyadoo meeshii shaahu kaga daatay ka marmarinaysa awal bay nabarro iyo xagtimo tiro badan meesha ku lahaydoo dhaawaceedu ma yarayn mar labaad baa shaah loo soo shubay oo looma sii dayne inta loo qabtay la cabsiiyey waxa kaloo agteeda la soo dhigay burjikadii reerka quraacda ku karsanayay si loo kulaalsiiyo dhiiguna ugu diirsamo waxa yaab lahaa sida qabowgu ugu tagay ay u gariireysay mudday qaadatay nolol ku soo celinteedu alla tani mid nool ma ahe way dhimanaysaa yaa u dadoo aan la doonaa afadii soo qaaday baa tiri maryan way maqlaysaa hadalka iyada u dhacaya markaasay iyadoo gocanaysa dhibaatooyinkii horay u soo maray bayan haddana ugu muuqan meelay wax ka tiraahdo iyo cid sidaa ugu bihinbihaysa dhibaatada haysata aragtay inay xabaal mari waa tahay qadarro badanna ay ka soo noolaatay sidaa daraaddeed iyada waxa naagta ka nixinayaa dhib sidaa u weyn lamaba aha marka inta si walba naftii ugu soo noqotay bayan wax sidaas ah tabanayn aan ahayn qalada magaalada ay ka qaloonayso xanuunka dabku gaarsiiyay iyo ciirsi la'aanta la soo gudboonaatay inkastoo cid alla ciddii kalay la kulantaa ay u dhaanto aayadeedii bahalaha siisay waxay soo baxday yatiin isha ka miligsiinaysa reerkay la tiil may ahayn reer sidaa ula socda faa'iidada daweynta iyo la dagaalanka jirrada iyo waliba iyagoo maryan u arkayay qof aan sidaa u sii ribnayn micno daran maryan muddayan hadlin baqdin iyo sheekh dartii afadii horeyba u soo kaxaysay ayaa ilaa iyo markaas aad isugu taxluujinaysay bal inay u qabato ugu yaraan waxyaabahay tabanayso hadba waxbay weydiisaa inay cunto rabto biyo dhaxani inay hayso maryan meeshay reerka ka deganeed waa meel aad u rasanoo qashin badan had iyo goorna aan digaag fagta dabacadeeyo ceersanaya iyo mukulaale laga waayin waa meel u dhaxaysa jikada iyo guriga intiisa kale balbala ah 2-3 jiingadoodna saaran yihiin markii reerku martiqaad qabo iyadaa sida badan wax lagu karsadaa oo had iyo goorba waxaan laga waayin dambas jaqafyo iyo waxyaabo la isaga tuuro maryan inkastay wali nabaradii bugbukeen haddana shaqay bilowday iyo inay u adeegto afadii iyada ahayd bay noqotay waxa ilaa iyo maalintii ugu dambeysay baadi goob ugu jira aabaheed iyo isna odaygii soo baadi dheelmaye magaaladaba keenay leesmoog
laysmana oga odaygii aabaheed ahaa quus bay ka ahaatay wuxuuna u daystay in kol hore dugaag cunay odaygii kalese inkastuu aaminsanaa in cid uun magaalada ahi haysato wuu heli waayey kana quusan waayey si fiican buu u baadigoobay ha yeeshee muu haleelin intii uu baadigoobayey waa intay dhaawacnayd ayan dibaddaba dheehan inkastuu dhowr bari u baaqday haddana ugu dambaystii markuu waxba waayey ayuu isaga tegey isaga iyo asxaabtiisii ku soo dadaalay Maryan haddana si sahlan bay uga sibqatay odaygii wuxuu ka gaabsaday inuu asxaabtiisii u sheego in inantay heleen dhuntay dhanka kale haddii sheekadu siday inanta u caymiyeen gaari lahayd aabaheed waxa taa hor joogsaday ciidahay ka yimaadeen iyo degsiimada aabaha ayaan isku haadba ahayn ma kala war iyo sheeko heli jirin waana laba degsiimo oo aad u kala durugsan isku meelna aan degin si sahlan oo la oran karo way dabooleed ayay Maryan ugu gacan gashay reerkay la joogtay markii ugu dambeysay ugu dambaystii way biskootay inkastoo ay dhibtootay jirada haysay iyo galtinimada waxa uga sii dhib iyo halaag badnaa iyadoo tallaabadii la qaado iyo dhankii la eegaba ka yaabanayd waxa magaalada la yiraahdo iyo nolosheeda aan iyada la fasaxnayn soo xirxiran qala dhaga taag ah sheekh aad jiro moodo wiswis iyo yaqyaqsi dheeraad ah iyo amakaag ayay ka bixi weysay markay meel istaagto saacado ayay ku qaadataa waxyaalahay aqooni indhaha ku fagiijinayso baabuur ama nin surwaal qaba markay aragto waxaad moodaysay in yaab adduunka jira aanu u harin waxyaalaha ka sii yaabin jiray waxay ahaayeen cuntada magaalada sida baastada suugada mooska canjeelada iyo wixii la halmaala maxaa yeelay weligeed waxyaalo ay horay u aragtay maaha cunto waxay ka tiqiin caano hilib haruur iyo galley oo waliba sida loo kariyaa ay ka duwan tahay sida reer magaalku u samaysto waxay kaloo ka xishootay inay dadka weydiiso su'aalahaas sababtoo ah waxay isleed reer baadiya tahayo waa lagu la yaabayaa haddaad weydiisid marar aan yareen bay uga gabatay sida su'aalo badan oo loo baahnaa inay ka faa'iideysato wax kasta waxay ku daysanaysay inay iyadoo kaliyahay ka soo horkalaabato waxyaalahaas dadka kale sheekaysanaya aad bay ugu kuurgali jirtay si ay uga hesho aqoon ay doonaysay magaalo hadalladu markay soo galaan dhanka baadiye intay aamusnaan weyso ayay seefteeda galka ka soo saartaa lana qabsataa dadka laga soo bilaabo maalintay dhaawicii shaaha kulul gaarsiiyey ka biskootay way shaqaynaysay iyadoo hor ahaantii aad u jeclaysanaysay inay soo adeegto reerka Maryan shaqo gashaday waa xaas aad u ballaaran oo isku raran ah ubad gabdho u badanna leh waxaa jooga dad xididahe iska xil leh iyo kuwa mar wada dhashay marna isdhalay oo haddana la oran karo waa isku dhaxaan ama xididnima ka dhaxaysa haweeneydii soo heshay dhan waa ka sado gabadheeda la qabo dhanna waa ka xaasmin weyn leh dhammaan dadyowgaas waxay soo ahay isku goob bay ku soo wada dheelmadaan guriga lagu jiraa sida uma dhisma wacna ha yeeshee waa qolal badnaa hawsha ka iman karaysa reer inta leeg waa mid muuqata inay dhib yaraan ka tagan tahay Maryan oo dhammaan loo wada arko inay tahay qof xun iyadoo baadi ah cidla laga helay looguna manna sheeganayo sidii loo ceyshay ayaa lagu bilaabay shaqo aan kala go' lahayn oo waqti kasta joogta suuqa waa laga soo adeegaa dukaamada sokor iyo shaah iyo wixii kale laga doonayo kala go' ma leh weelka iyo dharku si joogta ah ayaa loo dhaqaa xaaqida iyo tirtirka guriga iyana waa joogto caruur yar oo mar saxaro laga tirayo mar loo qubaynayo marna la aamusinayaa iyana waa halkooda waxa inta dheeraa ilmaha reerka oo badani siday toos ahaan u adeegsan jireen oo u oran jireen nacnac buufin iyo wax la mid ah ii soo gad Maryan intay waliba lacagtay u dhiibayaan faraha uma saaraan agteeda ku soo sayraan dadku waqtiyada hurdada shaqada iyo nasashadu way u qaybsan yihiin Maryan se dhamaan waqtigeedu shaqo noqday laga yaabee inay 24 saac ee maalintu lahayd shaqayso 18 saac iyo ka badan iyadoo loo ogeyn dhibta haysata Maryan dharka la siiyaa waa cambuur xun ee habeen iyo dharaarba loogu manna sheegto kaba weligeed ma xiran madaxeedana huumay saarin sasaamaha gabarnimo kama soo daahirin inkastoo inan tahay
maryan iyadoo awalba hagaas ka ahayd xagga jirka caata laga wareerayna ay haysay ayay haddana hawshii badnayd xanaano xumadii qabsatay darteed hagaastay meel ay ka koranayd waxaa jirtay baad mooday dhanka lafta oo ay mar kastaba sii kala baxaysay reerku inkastuu badnaa haddana waxaa laga la'aa qof inta aadminimo iska baadha qoftan bal in yar undayma gaara siiya siday u nooshahay